السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وسلامتهن صومالي محمد ملكستو الدنيا ذا كجوكتان وصالح آذن راقي شيخ عبد الرحمن إن هي القرن إن ويل صوماليات كفانو علن كبلوغا شنت حدق له تاجر سن دور شقو في عضة إن قرب تاجن مدحوين محمد عبد الله محمد فرماجو إن dalkii Soomaaliya horbu u socday doorasho qof iyo cod baana deeqdo hadaynu nahay dhalinyarta ummadda Soomaaliyeed si aynu u gaarno horumar cizi sharaf iyo qabkeenu dib u soo laabto waxaan dhaleeceynaa ama aan mataqaanaa ka soo horjeednaa ee uu diidanahay maamul goboleedyada ka soo horjeedaan doorasho qof iyo cod ah inay Soomaaliya masiirkeedii iyo mataqaanaa taladeeda ay shacabka ummadda Soomaaliyeed ay ka gaaraan go'aan waxa u diidan horjoogayaasha especially horjoogayaasha mataqaanaa maamulka Garowe horjoogaha maamulka Hargeyso horjoogaha maamulka Kismaayo waxay mataqaanaa u diidan yihiin ummadda Soomaaliyeed qab sharaf iyo cizi inay ku noolaadaan masiirka ummadda Soomaaliyeed xal laga gaaro wada tashi iyo isdhexgal bulsho dhaqaalaha la kordhiyo xuduudaheena mataqaanaa la soo xiro migration adag la subsado mataqaanaa horumar iyo mataqaanaa lacagtii qaranka ummadda Soomaaliyeed dib loo soo celiyo mataqaanaa isdhexgal bulsho caasimad iyo caasimad ku xigeenkii ummadda Soomaaliyeed dib mataqaanaa ay u wada shaqeeyaan waxa hortaagan oo diidan oo mataqaanaa maanta kala tuurayo mataqaanaa saddexdii wax la isku soo xiro afartii wax la isku soo qabto si furfurayo shisheeyaha mataqaanaa sirdoon u ah mataqaanaa wax allaala wixii Soomaaliya ka jiro dawladaha dariska ah la wadaago waa saddexda maamulka Hargeyso maamulka Garowe iyo maamulka maxallahay Jubbaland hadaynu nahay shacabka ummadda Soomaaliyeed meel kasto aan dunida ka joogno waxaynu garab taaganahay doorasho qof iyo cod ah oo xor iyo xalaal ah oo ku saleysan Soomaalinimo oo ka dhacdo geyga Soomaaliyeed gees ka gees ilaa iyo Berbero ilaa iyo Dobley Boosaaso ilaa iyo Baydhabo Beledweyne ilaa iyo Burco Dhuusamareeb ilaa iyo mataqaanaa Qardho waxaynu rajaynaynaa shacabka ummadda Soomaaliyeed doorasho qof iyo cod in loo dareero mataqaanaa dawladda nabad iyo nolol dawladda federaalka ummadda Soomaaliyeed hadda jirto waa shaqo adag bay suubisay golihii shacabka bay awood siisay shacabka ummadda Soomaaliyeed bay garab istaagtay shacabka ummadda Soomaaliyeed waxa laga rabaa heel inay u muujiyaan dawladda awoodda dib ugu soo celisay shacabka ummadda Soomaaliyeed shacabkaas ay ka faa'iidayaan dhalinyarta ummadda Soomaaliyeed xoogga dalka ummadda Soomaaliyeed waxaan leenahay Dani iyo Axmed Madoobe way iyo Muuse Biixi shacabka ummadda Soomaaliyeed way idin arkaan way idin jeedaan waynu aragnaa qabqable iyo qabiil inuu mataqaanaa meelna geyneynin 30 sano la soo dhaafay mataqaanaa ku jirno mataqaanaa jugjug meeshaadi joog mataqaanaa dayacanahay dhiigeena la iska xalaaleystay maana la keeno mataqaanaa ajnabi iyo mataqaanaa siyaasad ajnabi shacabkeena ummadda Soomaaliyeed lagu laynayo dhiigoodi mataqaanaa lagu daadinayo haddana haba yaraatee jirdamqada aynu nagu jirin hadaynu nahay shacabka ummadda Soomaaliyeed oo maalin walba aan taaganahay qabiil hebela tunweyn iyo qabiil hebela mataqaanaa ka dhashay qabiil hebela magaalo hebel iska leh qabiil hebel kursigaas muxuu u waayay qabiil hebela saab diidan masiirka waa ka baxnay shacabka ummadda Soomaaliyeed dhalinyarta ummadda Soomaaliyeed gacmaha isqabsada dawladdeena garab istaaga dhalinyarta ummadda Soomaaliyeed meel kasto aad dalka ka joogtaan soo baxa isqora ciidamada xoogga dalka danab harmacad gorgor nisa
ciidanka doorasho saan u gaarno waxaynu u baahannahay amni si loo helo waxaa loo baahan yahay xoogana waa dhalinyarta ummadda Soomaaliyeed ka tashta canaasiirtan mataqaanaa 30 sano identity la'aan sharci la'aanna dhigeen mataqaanaa inaan ku noolaano mataqaanaa masaakiinnimo iyo dayacan mataqaanaa odayaashiin mataqaanaa na badeen inay maanta weli mataqaanaa ayna hortaagan yihiin waxaan ka hadlayaa aqalka sare haddaynu nahay shacabka ummadda Soomaaliyeed aqalka sare ha la burburiyo haddaan la burburin dib u eegis ha loo suubiyo dib u eegis ha la suubiyo oo dadka jooga hadda waa wada tuugo waa wada canaasir waa wada mataqaanaa qaran dumis waa mataqaanaa qabiil iyo qabqable qurun ku joogan aqalka sare golaha shacabkeenu awood siinayna haddaynu nahay shacabka ummadda Soomaaliyeed doorasho qof iyo cod oo dalka ka dhacdo baynu garab taagannahay haddaynu nahay shacabka ummadda Soomaaliyeed ka dhacdo Hargeysa iyo Muqdisho caasimadda iyo caasimad ku xigeenta ummadda Soomaaliyeed Hargeysa waa caasimadii labaad ee ummadda Soomaaliyeed ruux walba Soomaaliya bay ka dhaxaysaa sidoo kalena Muqdisho waa caasimadii ummadda Soomaaliyeed ruux walba mataqaanaa ay ka dhaxaysaa Muqdisho si aynu u gaarno horumarkaas iyo mataqaanaa tayadaas iyo mataqaanaa higsigaas iyo mataqaanaa qaran yagleelidaas iyo caalankan oo aan ciida ka qaadno oo aan mataqaanaa cirka sare aynu geyno waxaa naga xigto doorasho qof iyo cod ah aynu garab istaagno haddaynu nahay shacabka ummadda Soomaaliyeed meel kastoo aan dunida ka joogno waxaa la laa shukru cala alwaajib cid walba waxaa ka saaran waajib oo aadan mataqaanaa ammaan aadan ka sugaynin inaad mataqaanaa dalkaada wax allaala aragti mataqaanaa wacyi mataqaanaa maal iyo xoog caqli inaad mataqaanaa dalkaada gelisid waa laa shukru cala alwaajib shacabka ummadda Soomaaliyeed waxaan idin rajaynayaa ciisi sharaf qab iyo reen iyo farxad bashbash barwaaqo intaas kullina waxaan ku wada gaari doonaa insha Allah horbaa loo soconayaa doorasho qof iyo cod ah ra'iisul wasaare lama soo magacaabayo insha Allah gudoomiyihii nabad iyo nolol weeyaan ra'iisul wasaaraha mataqaanaa hadda hayo xilka insha Allah inta ka dhiman oo doorasho qof iyo cod Hargeysa iyo Muqdisho midaysan mataqaanaa aynu uga fadhinaa ra'iisul wasaare Mahdi Mideye shirka Dhuusamareeb Dani iyo Axmed Madoobe haddaad imaataan waa khayr haddiinan imaaninna waa khayr waxaan mataqaanaa ku bishaaraysanaysaan shirkaas maalintuu soo xirmo mudane madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo ku soo laabto maxallaha Muqdisho inuu la sheer gareyn doono la wadaagi doono baarlamaanka golaha shacabka ay mataqaanaa go'aan ka gaari doonaan go'aankay ka gaaraana shacabka ummadda Soomaaliyeed meel kasta ee dunida ka joogaan waa inay taageeraan golaha shacabka anagayna matalaan golahan shacabka hadda jiro waa mataqaanaa hor socod waa mataqaanaa qaran dhis waxa weeyaan dawlad taageerid waa dawlad yagleelayaal waynu taageersannahay waxaynu uga fadhinaa doorasho qof iyo cod inay dalka gaarsiiyaan baarlamaanka golaha shacabka iyo mudane madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo taas oo mataqaanaa shaqadeeda looga fadhiyo Mahdi Mideye waxaynu rabnaa Hargeysa iyo Muqdisho midaysan shirka xige ee mataqaanaa Somaliland iyo Soomaaliya waxaan rabnaa inuu mataqaanaa Mahdi Mideye uu ka qayb galo uu noqdo ninka la gartami doono mataqaanaa Somaliland uu noqdo asiga power sharing mataqaanaa hadday ka hadlaan uu dhaho aniga ra'iisul wasaare ah madaxweynena waa koonfur oo mataqaanaa mudane madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo si aan mataqaanaa uga dhamayno arintaasna doorasho qof iyo cod ah oo mataqaanaa ku dhacdo Soomaalinimo ku dhacdo maxallahay ku dhacdo maxallahay iscizi isku hambeyn kala dambeyn iyo Soomaalinimo waxaan leeyahay Soomaaliya ha noolaato nabadii nolol ha ku waarto shirka Dhuusamareeb guul buu ku soo dhamaanayaa والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وسلامتي سومالي محمد